maamulka degmada Maxamed Nuuge gaar ahaan xafiiska fayadhowrka ayaa soo bandhigay alaab dhacday oo ay ka soo qabteen qaar ka mid ah meheradaha ganacsi ee ku yaala degmada Maxamed Nuuge waxa sidoo kale si ballaaran ugu mahadnaqay dhammaanba meheradihii iyagu iskoodii isaga soo xareeyay alaabta dhacday kadib markii ay ogaadeen waxaana ay fariin adag maamulku u direen dhammaanba ganacsatada kala duwan ee degmada Maxamed Nuuge inay dib u eegaan meheradahooga isla markaana ay iska saaraan alaabta dhacday ka hor inta aanay soo gaarin qaybta fayadhowrka ee degmadu. waxaan halkan maanta aan uga mahadnaqaynaa tiimka fayadhowrka degmada Maxamed Nuuge oo runtii shaqo wanaagsan qabtay oo bil kasta alaabaha dhaca iyo kala duwan haday tahay raashin haday tahay dhinacii caafimaadka ee farmasiyada dawooyinka haday tahay dhinacii bakhaarada haday tahay hodheeladii weelka wax lagu karinayay iyo haday tahay dadka danyarta barakacayaasha degmada ku nool sida Degaale iyo Kaame iyo Kaambi oo ay ka soo qaadaan alaabaha dadkaas oo qaarkoodna la ganaaxo qaarkoodna digniino la siiyo runtii tiimka fayadhowrka aad baan ugu mahadnaqayaa waa shaqadii guud ee caasimadda ee maayirka nagu hogaaminayay waxda arrimaha bulshada iyo qaybta caafimaadka ay mas'uuliyadda ka saarnay waxaan looga dan leeyahay oo dadka loo ganaaxaya alaabta laga soo qaadaya si loo ilaaliyo badqabka iyo fayaqabka bulshada saxadeeda iyo caafimaadkeeda runtiina dadweynaha waxaan ku wargelinayaa guud ahaan caasimadda gaar ahaan degmada Maxamed Nuuge in qofku aanu wax dhacay oo dheydkiisa aanu meheradiisa ku haysanin soo report gareeyo qofkii loogu yimaado waa lagu ganaaxayaa sharciga lagu horgeynayaa caafimaadka bulshada mas'uul baa naga saaran fayadhowrkooda mas'uul culus baa naga saaran marka waxa weeye alaabta aragtada ka dhacday wax walba dheyd bay leeyihiin dadka qaar waxa jira dhow markay baytariyada iyo xafaayadaha waxyaabaha arkaan oo tolo baytariga mu dhaca wax aan dhicin ma jirto dheyd bay leeyihiin marka waxa weeye qof kasta waxa la farayaa oo lagu wargelinayaa inuu bulshada ka iibiyo wax wanaagsan oo tayadeedii iyo badqabkoodiiba uu fiican yahay annagoo fayadhowrkii degmada Maxamed Nuuge waxaan maanta soo bandhigaynaa aytamadii aan soo qabanay bishii dhamaatay ee sagaalaad aytamadaas oo ka kooban hadday tahay bacihii kontrabanka ahaa hadday tahay daawooyinkii hadday tahay cosmeticskii hadday tahay sharaabadii haddii ay tahay cuntadii haddii ay tahay weelkii cuntada lagu karinayey dhammaan alaabihii expireka ahaa oo dhan way ka kooban yihiin waxaanu leenahay wixii naga dhimanee kalena waa soo qaban doonaa dhammaan bulshada degmada Maxamed Nuuge waxaanu furaynaa in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha kontrabanka ah ee bacahu ay ka midka yihiin oo mamnuuc ah alaabaha expireka ah ee muddadoodu dhacday inay sida marka ay dhacaan in muddadoodu ay gaadho inay u soo gudbiyaan waaxda Maxamed Nuuge laanta u qaabilsan fayadhowrka oo ay degmada ku soo wareejiyaan ama rubeedkoodana soo siiyaan dhammaan bulshada waxaan ku wacyigelinayaa in ay cid kasta oo cunto iibsanaysa ama dawo iibsanaysa ay iska eegto dheydkeeda iska eegto ayaa furayaa waxaan leeyahay si wanaagsan baan anagu aanu shaqadeeda u gudanaynaa idinkuna iska ilaaliya waxa dhacay waxa kontrabanka ay aragtaan ha la soo sheego